السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن ونكسن داوضيال ميل والبو oo joogtaanba qodobada aad wararkeena ku maqli doontaan waxa kamida dagaal aad u kharaar ayaa ka socda maalintii shanaad magaalada Mille ayadoo halkaasi warbaahinta madaxa banaani ay soo taminayso in xoogga TPLF halkaasi looga itaroonaday jab weyn oo ka soo gaadhay hamigii ay u lahaayeen in ay dagaalkaasi wadaan halkaasi aad moodo in uu ku soo gabagaboobay ayadoo dagaalka magaalada Mille ka socda uu noqday dagaalka ugu saameynta badan ee warbaahinta caalamka ama dawladaha caalamkuba ay isha aad ugu hayaan ayadoo halkaasi qolada ku guulaysato ay dagaalka sii wadi karto sida ay soo tabinayaan siyaasiyiinta caanka ama laga soo xogitay xoghayaasha dagaalka ka socda dalka Itoobiya sidoo kale xoogga TPLF ayaa waxay mar labaad ku hanjabeen inay ugaarsan doonaan waxa ay ugu yeedheen sirdoonka qarsoon ee ka howlgala dalka Itoobiya ama ajnabiga qarsoon ee dalka Itoobiya ka howlgalaya dawladda federaalkana ka saacidaya dhanka dagaalka xoogga TPLF ayaa waxay wacad ku mareen inay qudda ka jari doonaan meel kasto ay kula kulmaan waxa ay ugu yeedheen cadawga qarsoon qodobada kale wararkeena ku maqli doontaan waxa kamida dawladda federaalka Itoobiya ayaa waxa ay sheegtay in ay ciidamo aad u fara badan u diyaarisay sugidda caasimadda Addis Ababa iyadoo laga cabsi qabo inay xoog taabacsan jamhadda Ola ee xoreynta Oromiya inay si gaadmo ah ku dilaan saraakiisha dawladda ee ka howlgasha magaalada Addis Ababa ayadoo horey ugu baaqeen jamhadda Ola inay ciidamo dhar cad ah ay u diyaariyeen howlgalka magaalada Addis Ababa ee waqti kasta la filan karo inuu ka dhaco sidoo kale madaxa TPLF ayaa mar uu xalay waraysi siinay warbaahinta ka howlgasha gobolka Tigreega ayaa hadalkiisa caalamku waa dawladaha caalamka waxay u fasireen in halkaasi niya jab Tigreega uu ka soo gaaray dagaalka ka socda waqooyiga dalka Itoobiya ayagoo xoogga TPLF sidii ay moodayeen uu noqon waayo dagaalku ay xoogga TPLFna in badan ku taamayeen inuu dagaalkani soo gabagaboobi doono waqti aan loogu talagalin waqtigii loogu talagalay haase yeeshee ilaa waqtigii ay xoogga TPLF magaalada Dessi iyo Kombolja qabsadeen ayaa jawi isbedelay dawladda federaalkuna ay carcar labaad la soo baxday qodobadaas iyo qodobo kale faahfaahsan ayaa warkana ku maqli doontaan taariikhdu waxay ku beegan tahay 15 bisha 11 2021 haddaynu u guda galno wararkeeni oo faahfaahsan dagaal aad u kharaar oo u dhaxeeya ciidanka federaalka iyo huwanta saacideynaysa iyo xoogga TPLF oo dhana ayaa wali maalintii shanaad ka soconaya duleedka magaalada Mille ayaa waxay noqotay istiraatiijiyada labaad ee dagaalka ka socda waqooyiga dalka Itoobiya halkaas oo noqotay taageedkii labaad ee caalamku aad isha ugu hayo dawladda federaalka iyo xoogga TPLF ayaa halkaas ku adeegsanaya hubka noocyadiisa kala duwan ayagoo la sheegay halkaas dagaalka ka socda inuu ka awood badan yahay dagaalkii ka socday magaalada Dessi ee caasimadda gobolka Wollo dagaalkan oo dagaal aad u khadhaadha oo maalmihii la soo dhaafayba hubka noocyadiisa kala duwan la isku adeegsanayo oo waxbana la isku reebanin ayaa halkaas waxay u suurtagal weeyay xoogga TPLF inay gacanta ku dhigaan ayagoo magaalooyinkii hore ay soo qabsan jireen ciidanka federaalku una difaac badan kala hortagay jireen oo u banayn jiray goobaha dagaalada haase yeeshee magaalada ayaa waxaad moodaa inay ciidiyaha asar ciidanka federaalku ayadoo dawladda federaalku ay adeegsanayso diyaaradaha ciidanka cirka ee dalka Itoobiya kor ay ka duqeynayaan taangida ay TPLF adeegsanayso TPLF ayaa waxay ku noqotay dhabar jabkii ugu weynaa magaalada Mille ayadoo dagaalku sidii ay u qorshaysan noqon weynaa una ka sii ballaadhay dagaalka magaalada Mille waqti ayna ku xisaabtameen TPLF oo budgetka ugu jirina uu magaalada la soo baxday magaalada ayaa waxa garwaaqsatay dawladda Dr. Abiy Ahmed haday gacantooda ka baxday inay u dhamaatay jiritaanka dawladda ayadoo halkaas dawladda federaalku ay isku geysay ciidanka ugu badnaa dhan kastaba ha ahaatee haase yeeshee xoogga TPLF ayaa hadda waxay garwaaqsanay dawladda federaalku awood dheeraad la soo baxday sidii la moodayna uu dagaalku noqon waayo una u baahan yahay fikrad iyo abaabul iyo maskax ciidan oo kale
dowladda federaalka ayaa in badan waxay wacad ku martay marna inaan u suurtageli doonin xooga TPLF inay cagta soo dhigaan magaalada Addis Ababa caasimada dalka Itoobiya iyadoo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed uu in badan ku celceliyay inuuna marnana banaynin doonin jidda hore dagaalka ama uuna ka tanaasulin xilka uu hayo kursiga ee ra'iisul wasaarenimada dalka Itoobiya ee 5 sano ee soo socota loo dhaariyay asagoo sheegay inuu yahay xaq u lahaanshaha dalka Itoobiya si maamulaha 5 sano ee soo socota cid uu kala hadli doono ama gorgortan kala gali doonana inay jirin hase yeeshee beesha caalamka ayaa waxay taxadar badan dheeraad ku bixinaysa iyo dadaal aad u fara badan inay dalka Itoobiya nabad laga gaaro dagaalka waqooyiga ka socdana la soo afjaro xooga TPLF iyo dowladda federaalka mar miiska wada hadalka la isku keeno dagaalka Itoobiya oo hadda sanad iyo dhowr maalmood gudaha la galay ayaa la garanayay maalinka uu soo afjarmi doono ayadoo maalinba maalinka ka dambaysa dhilada dagaalka iyo walbahaarka iyo qaylada ka soo yeedhaysa dalka Itoobiya oo caalamku aad u rafajay caalamkuna uu isha aad u hayo waxa ka dhacaya waqooyiga dalka Itoobiya sidoo kale warbaahinta madaxa banaan ayaa waxay soo tabinaysaa xooga TPLF inuu jabkii ugu ballaadhnaa ka soo gaadhay magaalada Mille ayaa xooga TPLF waxay ku soo qaadaan weerar aad u culus oo xagga hubka noocyadiisa kala duwan adeegsanayaan taangiyada ciidanka kabaandooska ee sida degdega ah jiida hore u gaadha hase yeeshee ciidamada maleeshiyada oo aad u fara badan iyo ciidanka difaaca cirka dalka Itoobiya ayaa xooga TPLF suurtagelin waayay inay tallaabo rogi waayaan ayagoo meel kasta oo joogaan lagu burburinayay iyo meel kasta ay ka soo tuurayaan hubka noocyadiisa kala duwan xooga TPLF ayaa magaaladaasi waxay kala kulmeen jabkii ugu cuslaa ayadoo laga soo xiganaya afka uu ku hadlay hogaanka TPLF in uu dagaalka Itoobiya una maslaxa u ahayn xooga TPLF ama Tigrayna ay marnana ku qarweyn ama ay u soconin inay dal Itoobiya oo kale taqasan hase yeeshee taageedkoodu hal mid oo kaliya yahay sidoo kale madaxa TPLF ayaa mar uu xalay warbaahinta ka howlgasha gobolka Tigrayga waraysiinayay waxa uu yiri xooga TPLF ama Tigrayga ama jamhadda ilaalinta shacabka Tigrayga kullu kuma tala jirto inay dalka Itoobiya ayadu maamusho kursiga ugu sareeyana ay fuushaayna gaadha magaalada Addis Ababa caasimada dalka Itoobiya ay ka taliso ama dhul balaadhsi kale inayna u soconin hogaanka TPLF ayaa waxa uu sheegay inay jamhaddan u taagantahay ilaalinta shacabka Tigrayga ama jiritaanka Tigrayga marnana ayagu aynu soconin inay dad kale oo Itoobiyaan dulmiyaan hogaanka ayaa waxa uu sheegay hadduu Dr. Abiy Ahmed meesha baneeyay shacabka Itoobiya inay isku tashani doonaan Tigrayna ayna dhulkooda wax ka badan ayna u soconin shacabka Itoobiyana ay kula dhaqmi doonaan wanaag iyo wada noolaansho hogaanka ayaa waxa uu sheegay dagaalka Itoobiya ka socda inuu yahay dagaal lagu khaldamay hogaankaasi ayaa hoosta waxa uu ku xariiqay inuu dagaalkaasi qaadayo mas'uuliyadiisa Dr. Abiy Ahmed asagoo sheegay in shacabka Tigrayga lagu soo qaaday dagaal xaq darro ah waxa aan ku jirana inuu yahay istifaaco kaliya hogaanka ayaa mar wax laga weydiiyay inay TPLF rabto inay dalka Itoobiya maamusho waxa uu sheegay inayna TPLF marnana ugu jirnay dalka Itoobiya maamushaasha shacabka Itoobiya inuu nin walba aysa ka tashado ay TPLF oo dagaalamayso sidoo kale dowladda federaalka Itoobiya ayaa waxay sheegtay inay ciidamo gaar ah u diyaarisay sugidda ammaanka magaalada Addis Ababa waa caasimada dalka Itoobiya dowladda ayaa aad uga baqaysay xooga Ola oo saa uga fogeyn magaalada Addis Ababa caasimada dalka Itoobiya ayagoo horey u sheegay afayeenka Ola inay dhalinyaro dharcad ah ay ku hareereyseen magaalada Addis Ababa waqti kasto amar la siinayo ay shaqadooda gudanayaan ammaanka magaalada Addis Ababa ay gacanta ku qabanayaan hase yeeshee dowladda ayaa waxay sheegtay in ciidamo aad u fara badan ay u diyaaristay magaalada dadka soo galaya ee kuwaasi baxayaba inay baaritaan dheeraad ah sidii hore ka duwan la sameeyo si aan loo beegsanin saraakiisha muhiimka ee dowladda federaalka ee ka howlgasha magaalada Addis Ababa tan iyo kulanti dambe wacan salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.